injiilka sida Mataayo u qoray cutubka 23 dabadeed Ciise ayaa dadkii badnaa iyo xertiisii la hadlay oo wuxuu ku yidhi culimada iyo farisiintu waxay ku fadhiistaan kursiga Muuse haddaba wax walba oo ay idin sheegaan inaad doortaan dhowra oo yeela laakiinse siday sameeyaan ha samaynina waayo waxbay yidhaahdaan mana sameeyaan waxay isku xidhxidhaan culaabo culculus oo waxay saaraan dadka garbihiisa laakiin iyagu dooni maayaan inay fartooda ku dhaqaajiyaan laakiin shughulkooda oo dhan waxay u sameeyaan in dadku arko waayo xersiyadooda way ballaadhiyaan oo faraqa dharkooda way weyneeyaan waxay jecel yihiin meelaha hore ee difaayadaha iyo kursiyada hore ee sinagogyada iyo salaanta suuqa in dadku ugu yeedhaan macallin laakiin yaan laydinku yeedhin macallin waayo mid baa macallinkiina idinku kulli walaalo baa tihiin ninna dhulka ha ugu yeedhina aabbe waayo mid baa aabbihiina kaasu waa ka jannada ku jira yaan laydinku yeedhin sayido waayo mid baa sayidkiina kaasu waa masiixa laakiin kan idinku weyn waa inuu ahaado mid idinkiina oo ku alla kii isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa oo ku alla kii is hoosaysiiya waa la sarraysiin doonaa laakiin waa idiin hoog culimo iyo farisiin yahay oo laba wajiilayaashahu waayo boqortooyada jannada ayaa dadka ka xidhaan maxaa yeelay idinku ma gashaan oo kuwa gelayana uma daysaan inay galaan waa idiin hoog culimo iyo farisiin yahay laba wajiilayaashahu waayo waxaad laasataan guryaha carmalada oo tukashooyin dhaadheer ayaad istusid u tukataan sidaa darteed waxaad heli doontaan xisaab aad u daran waa idiin hoog culimo iyo farisiin yahay laba wajiilayaashahu waayo badda iyo dhulka waxaad u wareegtaan inaad mid soo hadaysaan oo kolkuu sidaas noqdo waxaad ka dhigtaan wiilka jahannamada 2 kol in idinka badan idinka waa idiin hoog hogaamiyeyaal yahow indhahaalow oo leh ku alla kii macbudka ku dhaarta waxba maaha laakiin ku alla kii dahabkii macbudka ku dhaarta wuxuu ku dhaartay waa lagu leeyahay doqonno yahow indhahaalow kee weyn dahabka iyo macbudka dahabka quduuska ka dhiga oo weliba waxaad leedahay ku alla kii meeshii allabariga ku dhaartaa waxba maaha laakiin ku alla kii ku dhaartaa hadiyadaha dul saaran wuxuu ku dhaartay waa lagu leeyahay indhoolayaal yahow haddaba keebaa weyn hadiyadda iyo meesha allabariga oo hadiyaddu quduuska ka dhigta haddaba kan meesha allabariga ku dhaartaa wuxuu ku dhaartaa iyada iyo wixii dul saaran oo dhanba oo kii macbudka ku dhaartaa wuxuu ku dhaartaa isaga iyo kan dhex deganba oo kii jannada ku dhaartaana wuxuu ku dhaartaa carshiga Ilaah iyo kan ku dul fadhiyaba waa idiin hoog culimo iyo farisiin yahay laba wajiilayaashahu waayo rixaanta iyo kabsarta iyo kamuunta 10 meelood ayaad meel ka bixisaan oo waxaad dhaafteen wixii sharciga ugu cuslaa waxa weeye xukunka iyo naxariista iyo iimaanka waxaad lahaydeen inaad waxan samaystaan oo aydnan kuwa kale dhaafin hogaamiyeyaal yahow indhahaalow oo kaneecada iska miira oo awrka liqa waa idiin hoog culimo iyo farisiin yahay laba wajiilayaashahu waayo koobka iyo saxanka dushaad ka nadiifisaan laakiin gudaha waxaa ka buuxa dulun iyo damacad badnaan farisi yahow indhahaalow horta koobka gudaha ka nadiifi in dushiisu nadiifsanaato waa idiin hoog culimo iyo farisiin yahay laba wajiilayaashahu waayo waxaad u egtiin xabaalo la caddeeyey kuwa dushoodu u eg tahay wax qurxoon laakiin hoosta waxaa ka buuxa lafa dad dhintay iyo wasakh oo dhan sidaasoo kalena idinku dusha waxaad dadka uga egtihiin dad xaqa laakiin gudaha waxaa idinka buuxa laba wajiilanimo iyo dembi
وإذين هو علماء وفارسين يهي لو وجيلياشاو waayo waxaad dhistaan xabaalaha nebiyada oo waxaad qurxisaan qabriyada kuwii xaqa ahaa oo waxaad tidhaahdaan haddii aanu waagii awowayaasha joogi lahayn annagu kalama aanan qayb galneen kuwii dhiigga nebiyada qabay sidaasaad isugu marag furaysaan inaad tihiin wiilashii kuwii nebiyada dilay idinku haddaba dhammaystira qiyaastii awowayaashiin abiyeysooyin yahow dal jilbisay sidee baad uga baxsan doontaan xisaabta jahannamada sidaa daraaddeed waxaan idiin soo dirayaa nebiyo iyo kuwo xigmad leh iyo culimo qaarkood waad dili doontaan oo isku tallaabta ku qodbi doontaan qaarkoodna sunnagogyadiinna ayaad ku karbaashi doontaan oo magaalo ilaa magaalo ayaad ku silcin doontaan inuu dushiinna ku soo dego dhiiggii xaqa ahaa oo dhulka ku daatay oo dhan oo laga bilaabo dhiiggii haabil kii xaqa ahaa ilaa dhiiggii sakariyas ina barakiyas kan aad ku disheen meesha quduuska ah iyo meesha allabariga dhexdooda runtii waxaan idinku leeyahay waxyaalahan oo dhan ayaa qarnigan ku duldegi doona yeruusaalemey yeruusaalemey tan nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy intee baan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo ururiyo xataa sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoosteeda ugu soo ururiso laakiin idinku ma aydnaan jeclayn baleega gurigiinnii waa laydiin daayey isagoo cidla ah waayo waxaan idinku leeyahay ima arki doontaan hadda dabadeed ilaa aad tidhaahdaan waxaa barakadaysan kan rabbiga magaciisa ku imanaya